dagaalka Ciraaq iyo Iiraan waxa uu ahaa mid ka mid ah dagaaladii ugu dheeraa uguna khasaaraha badnaa ee ka dhaca bariga dhexe. Dagaalkan oo ahaa mid faraha la isaga gubtay ayaa waxa uu labada dhinac ka dhex bilaabmay sanadkii 1980 waxa uu soo gabagaboobay 20 Agoosto sanadkii 1988. Dagaalkan u dhaxeeyay Iiraan iyo Ciraaq ayaa waxa sababaha soo dejiyo lagu sheegay khilaaf xooggan oo u dhaxeeya labada dhinac, waxaana sababahaasi ka mid ahaa muran soo jiitay muddo dheer oo labada dhinac u dhaxeeyay kaasi oo ku saabsanaa dhanka xuduudda. Ciraaq oo sheegatay dhul ka mid ah Iiraan, gaar ahaan gobolka saliidda qariga ku ah ee loo yaqaano Kazakhstan, iyadoo ku doodaysay lahaanshaha dhulkaas maadaama ay deganaayeen gobolkaasi dad asal ahaan ka soo jeeda Carabta. Dadka dhulkaasi degay xilligii khulafaa raashidiinta ay dhulkaasi ka arrimin jirtay. Waxaa kaloo ka mid ah sababaha soo dejiyay khilaafka madaxweyne Saddam Hussein oo waqtigaasi awoodiisa ciidan aad u xooganeyd, maadaama uu damacsanaa inuu noqdo quwadda kaliya ee ka jirta bariga dhexe, isagoona u arkayay qabsashada qayb ka mid ah Iiraan inay fursad siinayso inuu noqdo quwadda kaliya ee ka jirta bariga dhexe. waxaa kaloo ka mid ah sababaha soo bixitaankii kacaanka islaamiga ah ee Iiraan, iyadoo hogaamiyihii Ayatollah Khomeini uu dadaal weyn u galay sidii uu muslimiinta ku nool Ciraaq ugu kicin lahaa maamulka Saddam Hussein, halka Saddam Hussein uu isna ku howlanaa kicinta muslimiinta sunniga ah ee ku nool Iiraan. waxaa sidoo kale ka mid ah sababaha dagaalkaasi u qarxay shaqoorkii lagu dilay wasiirka arrimaha dibadda Ciraaq, laguna dilay aagga xuduudda bari ee dalkaasi sanadkii 1980, isagoona arrinkaasi Saddam Hussein ku eedeeyey waddanka Iiraan. waxa uuna amray in si degdeg ah dagaal loogu qaado Iiraan. ugu dambaynna waxay Ciraaq weerar ciriyo dhul ah ku qaaday sanadkii 1980 waddanka Iiraan. haddaba dagaalkan oo ka mid ahaa kuwii ugu waqtiga dheeraa ayaa soo jiitamayay muddo dheer, waxaana labada dhinac kala gaaray khasaare xoog leh oo isugu jira maal iyo nafba. ugu dambayn sanadkii 1988 ayaa lagu guulaystay in la soo afjaro dagaalka. soo afjaritaankiisa dagaalkan waxaa soo dhoweeyey markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay ku baaqeen in la gaaro xabad joojin degdeg ah, iyadoo ugu dambayn lagu guulaystay in la joojiyo dagaalka.